ma ogtahay qofka caadiga ah maalintii inuu internetka isticmaalo 6 saac iyo bar. dhanka kale waxaa jira dad la yiraahdo streamers oo dadka sida joogtada ah live-ka ugu jira. ma ogtahay halka streamer celcelis inuu live ku jiro 2 saac ilaa 3 saac maalintii. halka marka waxaa jooga qof 6 saacadood internet isticmaalaya. halkaana waxaa jooga streamer hadlaya oo madadaalinaya oo u sheekeynaya bulshada 3 saacadood. marka qofkii internetka ku jiray waa sida qof tiyaatar soo aaday. qofka streamerkaana waa qofkii masraxa saarnaa. dadka streamerska ah maantay waa awoodaha ugu waaweyn ee wax bedela. waxaan la soconay sida iShow Speed yarka la yiraahdo oo streamerka ah uu u gulgilay saxaafadda iyo wacyiga reer galbeedka kadib markii uu tagay dalka Shiinaha oo lagu soo dhaweeyay xarumaha tiknoolajiyadda kala duwan ee dalka Shiinaha ayna tuseen hal abuurka yaab kale uu fajacay. bulshada maantay adduunka oo dhan waa isku mid. internet baa lagu wada jiraa ama Afrika joog ama Mareykan joog. dad baan shalay waxaan arkayay nin dhalinyaro ah oo streamer ah oo Soomaali ah oo Facebook lagu dhagan yahay oo wax laga sheegay oo la maagay dad siyaasiyiin ah oo soo dhaweeyay ama waqti siinaya. qofka streamerka ah qof sahlan ma aha. saacadii waa arkaanu waxa daawada 5,000 qaybtood 10,000 qaybtood waxaa maqlay inay daawadaan 2 milyan ee day Soomaaliya ka dhacday. anigu indhahay waxaan saaray almost 9,000 streamers ay daawanayaan oo game ciyaaraya. ustaad al-aqoonyahan oo meelahaas boostiga sarbeebta oo maaragtay labada eray soo qoraya mucaadalada ta'thirka ee bulshada xagee uga jirtaa my friend miss weydiis boxke maxaa tahay zirata wax saameyna aan leedahay ma jiraan. haddii aad u qabtay adduunku inuu wali u baahan yahay xogaaga aad soo akhrisatay waliba Soomaali haddaad tahay waxba ma qortid cilmi baaris ma samaysid ma waxa u qabtaa mustaqbalka inaad boos ka yeelan doontid ra'yil caamka iyo sameyntiisa iyo jihayntiisa waxaa tahay zero. badbaadadu waxay ku jirtaa dadka aqoonyahanka inay soo baxaan dad streamers ah. waxaan arki jiray dad aqoonyahan oo culimo ah oo sometimes arrimaha bulshada ka hadla sida Sheikh Abdulrahman Bashir oo kale oo ayaantii live ka bilaabi jiray habeenkii sometimes 1000 baa live-kiisa hal mar daawan jirtay. waa shakhsi figure ah siyaasadda ka hadla oo runtii taxliilkiisu aad u fiican yahay. yaa kale streamers maanta caawa haddii aad tiraahdo qofkii streamer kala mowduuc ka hadal wuxuu ku leeyahay waxbaan soo diyaarinayaba. streamers waxa ma soo diyaariyaan dadka waa la hadalaa. qoonta aad leedahay maaha maanta inaad chapter dheer ah soo xifdiday oo 10 saacadood soo diyaarinaysa inaad soo jeedisid. waana caawa halkaas soo fariisataa dadka aan la hadashaa. ma aha inaad wada hadlayso. streamerku most of the time dadku la hadlaaya oo la sheekaysanaya comments ka akhrinaysa su'aalaad ugu weydiinaya waa kaftamaysa mar qof social waxa tahay ee bulshada saameyn ku leh. waana shaqo runtii muhiim ah oo aan sahlanayn. haddii iskala weyn tahay in aad streamer noqotid oo dadka la hadashid oo wax u sheegtid ha ka walwalin bulshadan streamers baa u jooga booskaaga buuxinaya. waxa ay sheegi lahaydna wax kale wax ka duwan u sheegaya ama ha u fiicnaada ama u samaada. jeedkaygu wuxuu yahay in bulshada maanta wacyigeeda adduunka oo dhan lagu dagaalayo lana rabo dadka aqoonta leh bulshada la jeclada ka haysa inay ku talagalaan in mainstreamku uu isbedelay. waagi hore haddii ay ahayd bulshada in lala hadlo in idaacad ay xukuntay oo studio lagaga yeeray ama radio barnaamij laga siinayay waa dhamaatay. actually idaacadaha qaybtood joornaaladii waa ognahay waa isxireen. idaacadaha almost waa sii gabagabo. TV-giina mar dhow qabrigiisa la qodayaa. waxa la isugu imaanayaa streaming my friend. streamers ku soo bir aragtidaada muhiimka ahna bulshadaada u soo bandhig. Assalaamu calaykum.